kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kadib 4 maalmood dagaal ka socday xadka u dhaxeeya Pakistan iyo Hindiya labada dal ayaa ku heshiiyay xabad joojin buuxda haweenaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu door muhiim ah ka qaatay dhexdhexaadinta labada dal wasiirka arrimaha dibadda Pakistan Ishaq Dar ayaa xaqiijiyay in wada hadallada ay ku lug lahaayeen dalal ay kamid yihiin Turkiga Sacuudi Carabiga iyo Mareykanka dhanka kale Hindiya xogayaha arrimaha dibadda Fikra Misri ayaa sheegay in dalkiisu ogolaaday joojinta dhammaan hawlgallada militari ee dhulka cirka iyo badda labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyay inay dib ugu laabtaan miiska wada hadallada isniinta soo socota xiisadda ugu weyn waxay ahayd markii Pakistan ku eedeysay Hindiya duqeyn ka dhan ah 3 saldhig oo ciidan halka Hindiya ay dhankeeda ku eedeysay Pakistan inay adeegsanayso gantaalo dheereeya labada dhinac ayaa isku eedeeyay inay wadaan kordhin colaadeed Pakistan ayaa dib u furtay hawadeeda si diyaaradaha caalamiga ah ay u isticmaalaan halka saraakiisha difaaca Hindiya ay xaqiijiyeen inay diyaar u yihiin inay isdifaacaan haddii loo baahdo Mareykanka ayaa ballan qaaday inuu sii wadi doono taageerada dhexdhexaadinta si looga fogaado dagaalo mustaqbalka ah waa tahay daawadayaal halkaas waxa inoogu eg warkeena caalamka ee maanta warkeena caalamka maanta waxaan ku soo qaadanaynay xiisadda dagaal ee maalmaha u dhaxaysay wadamada Pakistan iyo Hindiya taasoo shalay laga gaaray dhaqangal heshiis intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah sidaas iyo nabadgelyo si aad u hesho internet xawaare sare leh oo aan kala go' lahayn dooro isgaarsiinta jiilka cusub ee Somnet Telecom oo hel internetka ugu xawaaraha sareeya dunida iyo guud ahaan geyga Soomaalida ee 5G internet si fudud u xulo xirmada internet ee ku habboon baahiyahaaga adigoo garaacaya xidig 540 gees oo ku raaxayso internet xawaare sare leh Somnet Telecom isgaarsiinta jiilka cusub